safiirka waddanka Shiinaha u fadhiya magaalada Muqdisho ee dalka Soomaaliya Ambassador Warsame oo ay weheliyaan maarayaha wakaalada biyaha Hargeysa iyo wakiilka Somaliland ee waddanka Shiinaha Ambassador Mangista iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta waxay booqdeen xarunta ceelasha biyo soo saarka Geed Deeble ee duleedka magaalada Hargeysa oo ah meesha ay dadweynaha magaalada Hargeysa ay biyaha ka helaan mashruucaas oo Shiinuhu ay fuliyeen 40 sano ka hor ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay maarayaha wakaalada biyaha Somaliland Ibrahim Siyaad Yoonis iyo wakiilka Somaliland u qaabilsan waddanka Shiinaha waxa maanta sharafna inaan soo dhaweyno kaamka Geed Deeble ku soo dhaweyno safiirka Somaliland iyo Soomaaliya China waxaanu ognahay systemkan aynu maanta joogno waxa dhisay dawladda China wajigiisii koowaad oo 70kii wajigii labaadna dhowr 80kii ilaa imika systemkaas sidoo shaqeynay waxa ku tusaysaa shaqadii quality-ga lahayd ee qabteen dawladda China waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa dawladda China iyo shacabkeeda shaqada weyn ee ka qabteen ambassadorka iyo teamka la socdaan waxaan leenahay waxaad indhihiina ku arkaysaan dawladda China waxay ay la qabatay Somaliland aadna waxaan idinku mahadnaqaynaa shaqada fiican ee qabateen inshallah ilaahay waxaan ku rajaynaynaa mustaqbalka dhow shaqada ay kala ka si weyn ee nala qabataan thank you very much welcome to Geed Deeble thank you marka runtii waxaan leeyahay safiirka soo dhawow maarayaan waxaan leeyahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay waxaan rajaynayaa shaqada sida maarayuu sheegay Chinese-ku ay ka qabteen halkan mid ka wanaagsan inay ka qaban doonaan oo wax lagu farxo in shaqadii waqti hore la qabtay wali maanta in ay muuqato raadkeedii danjiraha Shiinaha waddanka Soomaaliya Ambassador Warsame ayaa isna ka hadlay mashruucaasi uu booqday oo dawladdiisu ay fulisay 10 sano ka hor mashruucan oo biyo gelinta Geed Deeble waa astaan waa shacabtinimada ka dhaxeeya shacabka Shiinaha iyo Soomaaliya gaar ahaan shacabka ku deegaanka Somaliland waa maasantiin